wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ayaa soo bandhigtay mastambereynka cusub ee yeelan doonto magaalada Laascaanood muddo sodon ayna iska kaashan dowladda hoose ee degmada Laascaanood. Munaasabadda waxaa goob joog ka ahaa maayarka degmada Laascaanood, xogayaha dowladda hoose, gudoomiyaha gobolka Sool iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool, wasiirka howlaha guud iyo mas'uuliyiin kale isimo uqaal bulshada qaybaheeda kale. Awgeeralka waxaa ka hadlay maayarka degmada Laascaanood, xogayaha dowladda hoose, gudoomiyaha gobolka Sool, iyagoo ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay in loo sameeyo town magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaa isna halka ka hadlay wasiirka howlaha guud iyo guryeynta oo ka warbixiyay qorshaha cusub ay wasaaraddiisu ka bilowday magaalada Laascaanood, isagoo faahfaahiyay qaabka u dhici doonto mastambereynka cusub ee yeelan doonto magaalada Laascaanood. sidoo kale waxaa halka iyaguna ka hadlay dhinacooda odayaasha iyo waxgaradka, iyagoo la soo dhaweeyay qorshaha cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee nashqadeynta ah ee ka bilowday magaalada Laascaanood loola baahan, iyagoo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan wasaaradda howlaha guud iyo injineeradeeda intii ay ku hawlanaayeen ee wali ay ku hawlan yihiin ee habeen iyo maalin ay u soo jeedaan sidii ay u habeen lahaayeen u nashqadeyn lahaayeen tagsiimada magaalada Laascaanood. hawshani waa mastarbareenkii magaalada Laascaanood muddo 30 sano ay ku shaqeyn lahayd. waxa kamid ah waxyaalaha la qabanayo saad la socotaan magaaladeena meel walba jiingad baa isku goysay, buush, barkad, suuli, dhulkii biyo marayeen iyo dhulkii nalku marayay iyo dhulkii dhirta lagu beerayay intiiba jiingad baa ku go'an. qofku gurigiisu xaq u leeyahay. wixii wada degan waa la banaynayaa, wixii dooxa degan waa la banaynayaa. baan u gudbay aynu isla qaadano sidii aynu u hirgelin lahayn. faa'iidadu inoo leeyahay, wanaageena ugu jira, dantu waxay tahay in isla garano. inta iyaga u deeriyaa sarxaadiis taasoo dhan waxaynu ku higsan karnaa, kagana gudbi karnaa maamul iyo ummad wada socota ee aan kala socon, isku duuban. waxaan uga gudbayaa waxa ugu horeeya waa nabadgelyada. xalayse xeegana xeeguhu noqotaa ilkana uu naqeen loo xagtaa ilkana uu nabad galaan tuuraalaha ka tegina shacabkana waxaa leeyahay wixii dantiiba ku jirto u dhega nuglaada. waxaan kaloo leeyahay innaga waxa inoo haraya haddii masar badan laynoo sameeyo nolosheennii uu yahay yaa la siyaasadayni inaynu maanta isugu nimaadno wax danteenna ah. waxaan filayaa danta caamka ahi way ka qiimo badan tahay danta khaaska ah. haddii aan la helin dan caam ah, danta khaaskaana lama helo. wax walba oo nolosha bini'aadanka ku saabsani waxa ay ku xidhan yihiin in la helo danta caamka ah. waxa weeye waan soo dhaweynaynaa town badanka iyo masar badanka waan soo dhaweynaynaa. town badanka magaaladu ina ducaalow qaybtan markaa hore ee magaalada maxaa lahday hore u samaysantay waxa weeyaan waxa quraan ku bedeli karnaa waxa weeyaan wadooyinka inta xaafadooda ay tahay halkan maabkan waxa inta markii la sameeyay masar badanka meelaha khaldan ee uu taabtay line waa ka buuxa iyo meeshii gurigii khad qabsadayba ama wada qabsatayba halkan isagoo ballaaran ugu jira. waxaa kaliya ka sharxaya dib ugu noqonayaan u jeeday imika halkan aan u kacay inaan sheego. waxay yidhaahdeen bahalka wuxuu leeyahay solar. qofkii uu sheeganayo marka hore waa inuu sharciya oo aa sharciyaysa. marka labaadna waa inaad dan guud u ah oo 100% ah aad ku wareejisaa shacabka ilaahay ee magaalada degan ee leh. qadar maxamed cabdi, qadar tarabi, TV caalamiga badda 24, TV magaalada Laascaanood.